waxa weeyaan walaalow iska markaa salaada subax kadib tukanay oo cadceeda soo baxdo shaqada la aadayay ayaan magaalada baadawhaleena u soo baxno waxaan ku lahay dukaan baan ku leeyahay magaalada dhexdeeda waan u kala lahaa anigu markaan xaafadda horteedii iyadoo la siisay oo ay dad dhalinyaro hofaasas wataa joogaan baan kas iyaado imid adigu nabar baa igaga dhaco waa ka tegey laamigaan markaa ayaan gaadhay laamiga markaas gawaari calankii oromiya uu saaran yahay oo gawaarida haysiisiga la dhahaa wakti yar kadib hal saac iyo badh markay tahay xaafad biri dhabar kamida oo gambagaraado la dhaho iyo ka bilaabatay dagaalkii. yaa dagaalamayay? laba qolo ma dagaalamaysa. qabiilka dadka la dhaho oromada yaa waxay weerarayaan oo u dhacayaan dadka soomaalida aqaladiisa. markaas dagaalku halkaa markuu ka bilowday soomaaliduna wax diyaargarowi iyo wax shaki amina kuma jirin. adigu nin walba dee xaafadiisii iyo gurigiisii buu ka orday. wax yar kadib 2 saac oo subaxnimo markay ahayd waxaa bilaabatay aqaladii in la dibo. xaafada gambagaraado la dhaho 13 aqal ayaa la gubay. dadka ku dhintay aqalada lagu gubay 4 dhalinyaro oo meel ah, 4 dumara oo iyana meel ah, 8 reer Jabuuti oo hadda safaarada meydkooda yaallaan iyagoo dhaxal noqday. xaafadaasaa lagu gubay. tirada guud oo dhimashadu waa imisaa tiri? waa 14 baa hal xaafada ku dhimatay. indhahaaga ma ku aragtay adigu mise waa lagu sheegay? maaye indhahaygaan ku arkay. dadkan eroomada ah oo aad tiri calamay wateen oo dad bay weerarayeen, xaggay ka yimaadeen dadkani? ma dad reer Dirdhaba abaa mase waa dad meelo kale ka yimid? magaalada Dirdhaba buuraha sidaa ugu wareegsan dadka waxa weeyaan waa dad la soo diyaar gareeyay oo buuraha ka soo dhaadhacay iyo dadkii magaalada deganaa oromada ahaa baa iskaashaday. waayahay maxamed, adiga shakhsiyan maxamed ma waxaa kaa soo gaartay waxyeelo rabshadahaas? gacan baan hadda ka dhaawacda lahay. dukaankaygiina waa la boobay oo markii aan meeshii tegey waxaan u tegey dukaankii albaabkii labadiisa dhinac kale yaallaan baan u tegey waan iskaga soo cararay. naf baa haysay dee. dadka kale ee soomaalida ah waxaa tiri dad baa dhintay. magaalada hadda guud ahaan xaaladdu waa sidee? mursalo xaaladda hadda magaalada kaala hadlayo magaalada Dirdhaba bini-aadanka marka la wareysanayo waxbay ku dardaraan. magaalada hadda aan halkaan kaala hadlayo aqalkaan kaala hadlayo 8 qof baa kaga tegey maanta. hal qof baa ila joogta gabadhaan dhaleeda ila joogta. dadkii kale inay dhintay inay nool yihiin warumahayo. waxa isku baxaya iyo wax la raadin karo iyo wax dhaqaaqaya midna ma jiro. weli marka xaaladdu waa qasantaha leeda? xaaladdu way qasan tahay mursalo. waxaa weeye dhibaatada jirta waxaa weeyaan shacabku ha dagaalamo oo ha isku dhaco oo maaragtay shacabku sidii doonaba wuu isugu dhici karaa. waxaa jirta dhibaato weyn baan aragnay maanta marka magaalada dagaal ka dhaco ciidan baa jira dee.